wixii daadiyay ordo weydii annaga nala soo doonay kun jeer baan idin sheegnay halkaad ku arkayso qof indhigiisa daadinay jumbaado imkaan ku leeyahay xukuumadana u sheeg go'aamada masiiriga laguma baahiyo Facebook afyeenkii xisbiga wadani miyaanu hayn waxaad ii sheegaysaa inuu BBC la hadlo saacadu ma waxaad firaysaa khilaafka aanu qoraalada aanu arkaynay indhahayga aanu ku arkaynay u dhaxeeyay khilaafna ma jiro baaduu khilaafka aad sheegaysaa garbaha sheegaysaa xalay toban diyaarkay war degdeg xisbiga wadani laba garab ku maxaad markaa 13 November aad u lahaydeen dadka soo baxa oo ay dadku ku dhimanayeen oo ay ku mudaharaadeen waliba adigoo xogiyay aad mikrofoonka u sidaad dadka u kicinaysay aad lahayd 13 November noo dhinta doorashada dil kumaan oranin barkad ninka lagu yiraahdaa wixiisu waa been oo imkaan kugu celinaya masiirada waxyaabo qoraal arrimaha masiiriga Facebook daawadayaal halkan naga daawanaysa waa telefishinka Horyaal aniguna Cabdiraxmaan Jumban ahay barbarkayga waxa taagan xogiyeenka amniga ee xisbiga wadani Saad Ali Kaahi Saad Balaaki saacad waxa la socotaa shalay inay komishanka doorashooyinka ay soo saareen waqti ay ku qabanayeen doorashada madaxtooyada oo ay sheegeen muddo 9 bilood kadib ah inay qaban karaan waqtigaasna ay diyaar u yihiin bal ka waran arrinta ka soo baxday komishanka xisbiga ka hadlay arrinta hadda waxaan la soconaa in xogayihiisa warfaafinta uu ka hadlay uu BBC-da la hadlay sidoo kale afyeenka xisbiguna uu qoraal ku soo qoray uu kullid ah xogayaha warfaafinta ma la oran karaa xisbigiina khilaaf ayaa idin soo kala dhex galay mas'uuliyiinta xisbiga qaar ka mid ah oo siday dadkuba arkaan shalay toole xogayaha warfaafinta iyo afyeenka xisbiga kuwina Horyaalun baa waxa boombooniyay ilaa xalay talaal laba garab uu kala jaro laba garab ma isku yeelin marka hore labada garab inta jidhaan u dhaxaysa xisbigu ma kala jabin mana qaybsana waxaana official u baxay maradu BBC la hadlay xogayaha warfaafintu afayeenkuna ma qaldana iminkaan ku leenahay masiiriga laguma baahiyo Facebook laguma baahinin arrintu ka hadlay barqadiya kugu wuxuu jawaabayeen adu saacadu ma waxaad firaysaa khilaafka aanu qoraalada aanu arkaynay indhahayga aanu ku arkaynay u dhaxeeyay xogeey galaal iyo afyeen barqad xilibaan barqad adu ma waxaad arkaysay isagoo barqad leen uu qaldayay galaal miyuu cid magacaabay muxuu sheegay barqad uu saxan yahay galaal uu magacaabay barqad galaal uu saxan yahay baan ku yiri oo isagoo official buu hadlay anu qoraal Facebook arki maayo laakiin saacad ku BBC la hadlay marka waxa la barqad ba khaldan miyaa waxaan ku yiri barqad ma qaldana imkaan ku leeyahay xukuumadana u sheeg go'aamada masiiriga laguma baahiyo Facebook afyeenkii xisbiga wadani miyaanu hayn barqad waxaad ii sheegaysaa inuu BBC-da la hadlay afyeenkii xisbiga wadani miyaanu hayn barqad xilibaan barqad yaa kugu xilka waa laga qaada haddaba haddii oo afyeenkii yahay xogiyii warfaafintan aad difaacaysid afyeenkiina qoraaladiisii aad dafiraysid miyaan la odhan karin markaa dhinaca galaal ayaad la safantay saacadu adigu waxaan ku idhi waa laba mas-uuloo xisbiga miisaan culus kule labaduba kumaan odhanin barkad ninka lagu yidhaahdaa wixiisu waa been oo imkaan kugu celinaya masiirada waxyaabo qoraal arrimaha masiiriga Facebook laguma baahiyo laakiin xogayaha warfaafintu saad adiguba ii sheegaysa BBC la hadlay warbaahintu la hadlay barkadna qoraalkiisu muu ahayn mid kullidiya galaal haddii aad leedahay galaal baa barkad weeraray anigu taa garan maayo laakiin se waxaan kuu sheegaya galaal inaanu ka hadlin wax kullidi ah barkad wax kullidi ah inaanu ka hadlin ninka lagu dhahdo maxaan ku dhahdaa galaal oo aanu odhanin galaal been buu sheegaya waxaanan kuu sheegayaa waxay haystaan ma jiraan meelaha waxay heegadu la wareegaalaysan weeyaan Facebook ku camirata yararkan YouTuberada noqday makiyo Facebookaradu waxay meelaha wareejiyaan weeyaan xisbiga wadani waa mid muu qaybsamin cid haysa ma jirto khilaafna ma jiro baaduu khilaafka aad sheegaysaa garbaha sheegaysaa xalay toban diyaarkay war degdeg xisbiga wadani laba garab kala jabay waxaan ogaaday inay noqon labada garab ma laf isku taala horta waa su'aal ku weydiiyay adiga waxa muhiimadu ay tahay aad aduguna arkaysaa anaguna aan arkayna waa hadallada ay isdhaafsadeen xogayaha iyo afyeenku taamar labaad ma dafiraysaa labada mikrofoon haystaan kuwabay haayeen marka hadal isdhaafsanayeen xisbigiina wadani miyaad aqbasheen doorashadaas 9 bilood kadib dhacay sida adigu bay sheegtay imka soo xisbiga ka hadlay baan ku arrinta marka waxa weeyaan anagu dadka shuruucda kuma tumanna sida xukuumadda maanta joogta hay'adii doorashada ugu sareysay waxay sheegtay in 9 bilood kadib la qabanayo doorashada ma oran karaan ma qaban kartaan anagu iyaga garsoorayaal iyaga commission ah iyaga doorasho ku shaqale ma anagu sida kulmiye sharciga madaxa iskaga nimaadno marna mijaaka kaga nimaadno marna caloosha kama daloolinay lama naan murmina adeersaad sheegay xisbigu wuxuu soo saaray in 9 bilood ay yiraahdeen waanu qabanayna waxaan ku naal 6 bilood gudahood ku qabto bil ku qabto ku naal ma anaga u yeedhina anagu shuruucdu ma yeedhina hay'adda ugu sareysa sharci doorasho haysata waa commissionkaas anaga qaybteedu ku jirta sida ay sheegeen xisbigu sidoo uga hadlay wadarkiisa maxaad markaa 13 November aad u lahaydeen dadka soo baxa oo ay dadku ku dhimanayeen oo ay ku mudaharaadeen waliba adigoo xogiyay aad mikrofoonka u sidaad dadka u kicinaysay aad lahayd 13 November noo dhinta doorashada dil maxaad hawlayd haddii aad aqbalaysaan maanta
adeer duruuf baa keentay aqbalaadda waxa weeyaan wax kasta oo shalay duruuftan maan idiin muuqan waxaan ku idhi wax kasta oo yimaada marka ay duruufta shalay way noo muuqatay berina way noo muuqan doontaa dadka maxaad markaa dhiigooda ku daadinaysay inaad ku soo saaraysay waa dhiigga wixii daadiyey ordoo weydiiya annagaa nala soo doonay kun jeer baanu idiin sheegnay halkaad ku arkaysa qofkan dhiiggiisa daadinaya jumbe adugu dadka idinku meydaan abaabuloydan lahayn soo baxo guryahooda ka soo saareen waddani ahaan war annagu banaanbax lahayn doorasho 16 Nofeembar kama dambayso annagu banaanbax silmiyan dadka ayaan ugu yeedhnay rasaas beerka lagala dhaco uguma yeedhin beerka kalama naan dhac rasaaste ugu dambayntii doorashadii 9 bilood kadib waad aqbasheen doorashada dhacaysa imika la wada ogyiina waa doorashada ururada markaa halkaa waxa laga arkaa soo maaha in xisbiga waddan uu ka qayb geliyo doorashada ururada marka ay tartamaan saddex oo hadhow nasiibkiisa qaadi doono inuu soo baxayo inuu meesha ka bax labadaba yaa kugu yidhi haddii aad aqbasheen doorashadii madaxtooyada 9 bilood kadib inaad doorashada ururada aad gelisay meel ka dhignayn war annagu doorasho madaxtooyada aqbalo ururada waxa sheegaysa garan mayno ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed